markaasuu hooyadiina isgarab dejiyey sodohdiina wuu isgarab dejiyey gabdhaha dhibka haysto hooyadeedna hoostay gashaan sodohdeedna way fiijin cadaalad miya wiilkan asaga waxaa la arkaa inuu tii ku waafaqo ee waxay labada maamaba aan ixtiraamno labadii hooyo labada dhinac iska kala dejiyey maalinta dambe gabadhi waxay tidhi waa qiso mashhuuro la yaqaan gabadhi waxay tidhi ani hooyadaa maba arki kari idhaafi ani hooyadaa islama noolaan karno iga rar caqli muun keenin oo muudhin adigana hooyadaa waan rari intaan bahayda moogta haddii hooyada la raro adna hooyadaa waan rari bay ahayd muun samaynine waayahay salaaddii waaga hadduu ii baryo geeddi baan cagta ka gelin buuri gabdhaha waa loo dhaga nugul yihi dhallinyarada da'dana waad arteen si ay ugu dhaga nugul yihiin waagay markuu baryey buu hooyadii geeddi hoosta ka geliyey suu u waday yaa duur ciddo ah oo oomano ah oo bahgooyo ah buu ku tuuray waa qiso jirta bal arrintaa ogaada aad u dhuuxa wallaahi qof walboo iimaan leh inuu ka xanuunsan waa hooyadii dhashay ee soo korisay qof walboo iimaan leh oo muslim ah oo damiir leh uu ka xanuunsan wuu iskaga soo noqday habeenkii baa la iska seexday waagi markuu baryay waxay tidhi duqdi kolley aminkan ma noole waa lagu kala baxaye bal soo fiiri ninkan asaga la gedgedaysanayo awe damiirkiisa aw waa kacay bal wuxuu yidhi hooyada aad ka wardoontis maamadii markuu gabalka u dhacay yaa xalay wax alla wixii ciddood ahayd ee duurka ku noolada dhan baa soo sawday soo qayliye waraabihii libaaxii ila meeshu waa meel duur cidla wax jooga ma laha markaasaa waxaa waa lala hadlo waxaa la yidhi maxaad u malaynaysaa waxaan soo sawdaynaya ee soo qaylinayo maxaad u malaynaysaa waxay tidhi waxaan u malayn xoolo ilaahay igu talagalay inuu yahay ilaan malaha rabbiga aad ka malaysanayso unbaad leeda mar walbaba ilaahay mala fiican baa laga malaystaa mala xun mar kastaba ilahay ka malaysani waxaa la yidhi ilaahay wuxuu oga dhigay geel iyo lo iyo ari wax walba ilaahay waa ahaysiin karaa hadduu wiilkii waagii u baryey wuxuu yidhi maamadii kolley waa lagu kala baxay aad bal soo fiirisid maydkeedii wuxuu u imaaday maamadii xoolo meelay kala dhigta bala dadkana xoolaha waa lagu jeceli adduunka qofka ugu ra'yi xun ugu liita haddii ilaahay xoolo siiyo ummaddoo dhan baa iskaga tawasuli iska daba istaagi ninkii xoolihii markuu arkayba duqdi waxaa ka galay hawa maamadii waaba taajiradba waa isa soo laabo gabadhii umad wuxuu yidhi hooyadii way naga raysay hawa maamadii waaba taajiradba waa isa soo laabo gabadhii umad wuxuu yidhi hooyadii way naga raysatay xoolo meelay kala dhigtay ba la adahay hunguri waa la jeceli sooma nin walba hunguri waa jeceli waxay tiri aniga hooyaday rar saaka hooyaday rar say xoolo u soo hesho geeddi hoosta ka geli duur cidla meeshii meel u qaabilkeeda aadi ila xoolo waa la jecel yahay moogta maamadii baa geeddi hoosta laga geliyey ila meesha xoola lagu sheegay bile moogta meel kale oo duur aho u yidhi waa meesha ugu waraabo badan ila xoolaha u bataan halkii dhurwaa wuxuu isku bedelay neef gele meeshii buu aadiyey halkii intuu ku tuuray iga imaaday gabadha waxay leed maanta inigana ilbiriqsaa ku taajiraysaa gabalkii markuu dhacay yaa wixii waraabo ahaa ama libaax ahaa ama dhurwaa ahaa baa soo qayli maamadii baa bal ka warran wallahi waxay tihi caawa habeenkii adduun iigu dambaysay caawa habeenkii adduun iigu dambaysay waxaan waa wixii cuni lahaa sida malaha ilaahay loogu kala dhow yahay fiiri lugbal baa lagu qaatay waa la cunay xumaan weligaa ha samaynin sheekhow war weligaa adi xumaan ha samaynin war weligaa adi dulmi ha gelin waagii markuu baryay gabadhi waxay tihi waagay sugi laada orad hooyada u tag intay xoolo haysatan iisu ogow faraskiisu soo qaatay waa soo kacay maamada wuxuu maa diriceeda geedaha la saaray meesha maxaa ka dhac arkaysaa war nin walow hooyada si ciyaara ha ugu xadgudbin nin walow hooyadaa si ciyaara ha ugu xadgudbin hooyaday rar maxay tahay anigana hooyada aan haysto qofka waxaa yeelaya asagase intee u socdaa aakhira rajo kama qaba miya waxyaalaha la yaab kale ka mid tahay waxyaalaha la yaab kale ayay ka mid tahay marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah waalidkooda inay u baari sameeyaan waddadii loogu talagalayna inay ugu baari sameeyaan